بسم الله الرحمن الرحيم وأنا عبد الوهاب artiska sawirkan sameeyey ah waxaan xoogaa rabaa inaan ka yar faaloodo sawirkan quruxda badan leh ee taariikhda xambaarsan. Sawirkan waxaan ugu magac daray the liberation of Mecca, maalintii la xoreeyey Mecca. waa maalintii la xoreeyey xaramka, waa maalintii diinteena suubaniye xoogeysatay. Asxaabtu markii ay madiine kasoo guureen ay usoo kicitimeen magaalada Maka, usoo kicitimeen ay Maka xorowday. sidaa daraaddeed baan ugu baxshay the liberation of Mecca. walaalayaal, taariikhdani xasuus weyn bay xambaarsan tahay. Markii aan sawirayay waxaan dib u noqday 1600 oo sannadood maalintii ay curatay islaamka, diinteena muslimka islaamka ee xoogeysatay. dhulku siduu eekaa maanta nin kasta oo maaragtay reer Jabuutiya amba Soomaaliya adduunka i fahmaya af Soomaaligan ku hadlayo waxa uu garanayaa xaramka siduu eeg yahay, Sacuudiga siduu eeg yahay, Maka, magaalada Maka, Makatul Mukarrama sida u eeg tahay. markaasi anigu markaa uu ninka artistku wax taswiirayo macno weyn ma sameynayso in Makada maanta la joogo ama xaramka maanta la joogo inaan taswiiro, because maaragtay waa meesha ugu maaragtay la tago ee maaragtay 1 bilyan oo adduunka ku nool maalin kasta way tagaan, maaragtay way tagaan sanad kasta. xashka iyay qaarkood tagaan ilaa 3 milyan oo qof baa xajida sanad kasta. way soo sawirtaan, way ka dharagsan yihiin. balse waxaan garwaaqsaday inaan sawiro magaalada Maka ama gaar ahaan xaramku siduu eekaa maalintii magaalada Maka ay xorowday 1600 oo sannadood. markaasi baaritaan xoog leh aan sameeyey. waxaan sameeyey dadku sidii u labisan jireen baan baaray, guryaha sidii loo dhisan jiray baan baaray, midabka ranjiga la marin jiray guryaha la marin jiray baan baaray. waxaan kaloo oon maaragtay aan raadiyey baadiyaha Sacuudiga, dalka Sacuudiga maanta la yiraahdo, iyo Suuriya iyo maaragtay Yamanta iyo Khaliijka waa isku wada dhaqan, waa isku wada dhismo. markaasi sidaas un bay magaalada Makana ay ahaan jirtay 1600 oo sannadood ka hor. kabcada uu iyo maaragtay Nebi Ibraahim dhisay waxaan muujiyey dhagaxii originaalka ahaa ee magaalada kabcada lagu dhisay, dhagaxii originaalka ahaa. iminka markaad maaragtay dadka soo xajiya waxaa daah weyn oo qurux badan baa lagu sameeya, waxaa looga ilaalinayaa dadku inay taataabtaan amba aan dhagaxda maaragtay maadaama dhagax gabooban yahay in dadku ay maaragtay soo rujistaan amba camuudiisa soo qaataan ayaa laga ilaalin, waa la hagoogaa. laakiin dhagaxii originaalka ahaa waa kaas. markaas walaalayaal, sababta aan maaragtay u sawiray waxa weeye waa arrimaha heritage-ka amba dhaqanka ama dhaxalka ah ee maaragtay dadka uu ninka artistigu amba ninka abwaanka amba ninka qoraaga amba maaragtay dadka noocaasi ee maaragtay wax sameeya waxay raad raacaan, isku soo ururiyaan dhacdooyin bay maaragtay wax qoraan, waxna maaragtay ka gobyaan amba ay ka heesaan amba ay ka sawiraan. sideedaba hal abuurka xagga maaragtay suugaanta dhagaha ayaa ku raaxaysta,
hal abuurka xagga farshaxanka amba sawir gacmeedkana indhaha ku raaxaysta. markaasi labadaasuna waa isku family weeyaan, oo run ahaantii ninka abwaanka ereyaa kusoo maaxa, ninka maaragtay artistigana aragtiba u sawiranta dabadeed markaa isu sawiraa. marka walaalayaal sawirkan waa sawir qiimo qaaliya ku jooga, run ahaantiina maaragtay patrimoine maaragtay heritage ah oo ummadda reer Jabuuti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo daweelka muslimka ee adduunka. waxaan kusoo bandhigay website-ka la yiraahdo Sashi la yiraahdo oo California, gaar ahaan magaalada Los Angeles ayaa maaragtay laga leeyahay. awalkiisii ingiriiska laga maamuli jiray, laakiinse imika xagga California laga maamulaa. waxaa lagu soo bandhigaa sawirada qaaliga ee adduunka maaragtay ragga artistiga. sawirkan qiimihiisu wuxuu joogaa $430,000 oo dollar buu joogaa. waa tresor maanta waxaan ummadda reer Jabuuti oo usoo bandhigayo, oo run ahaantii inay maaragtay ay ka faa'iidaystaan oo ay daawadaan. waa taariikh buu xambaarsan yahay, maaha taariikh waddan, maaha taariikh waa taariikh maaragtay ummad idiloo islaana dhaxalkoogiya. markaas aniga artist ahaan markii aan sawirayay, had iyo jeer ninka artistigu wuxuu ka dheeraadaa wax horey loo taswiiray inuu wax sawiro, sida ninka abwaanka ee heesaha sameynaya ama gobayada sameynaya wax horey looga hadlay inuu iska ilaaliyo oo wax jadiida uu sameeyo. marka aan wax sameynayay ma jeclaysan inaan maaragtay makada maanta la joogo amba xashka maaragtay kabcada maanta la joogo sida u eegtay inaan taswiiro. waxaan garwaaqsaday inaan dib u noqdo iyo mataqaanaaye 600 oo sannadood, sababtoo ana wax unique ah oo ka duwan dadka kale waa inaad taswiirtid. waa ta ugu muhiimsan. siday buuruhu ahaan jireen, buur baa magaalada Maka maaragtay inaad aragteen mooyaane buuraa ku hareersan. guryuhu maaragtay xoogaa isyar maaragtay qaar baa buurta ilaa buurta la dul koray oo dhisan, sidaasay ahaan jirtay. imika inkastoo la ballaariyey oo maaragtay sidii hore dhulku ahayn, dadku sidan maanta u labisan yihiin uma labisno, oo maaragtay waxay sawaabiyaan sida run ahaantii Suudaantu u labisan tahay maaragtay ayay sawaabiyaan, oo maaragtay arrimaha noocaasi oo kale. marka walaalayaal dadweynaha sharafta leh ee adduunka iga daawanaya, waxaan maaragtay comment-ka inaad soo dirtaan oo maaragtay aragtidiina oo maaragtay aad ka jeedisaan, ina aad maaragtay share samaysaan, inaad subscribe aad samaysaan. run ahaantii waxyaabaha heritage-ka ama dhaxalka waa wax lagu faano, waa wax nin Soomaaliya uu sameeyey. raggaan dee lacagta haystay khaliijka ku nool waa waxayna weli gaadhin ayaan sameeyey. diinta islaamka iyo maaragtay kabcada iyo maaragtay magaalada Makana waa mid ka dhaxaysa muslimka oo dhan, mid maaragtay u gaara maaha Sacuudi Carabiya amba Carabta. marka sidaa la ajligeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan xoogaa kusoo yar dhaweyn doonaa waayo waxa ka yar dheer, sawirka ka yar dheer, waan nagu soo yar dhaweyn doonaa. marka sababta aan u doortay sawirkani waa laba noocun buu ka samaysan yahay, oo bunni iyo caddaan. waxa weeyiin waayadii hore ranjiyada guryaha la marsanayay ayaa noocaan ahaa. guryaha oo dhan bunni baa la marinayay, daaqadaha la xardhi jiray oo maaragtay waxaa yar sawaabiyaa maaragtay Yamanta haddii aad tagtay inaad magaalada Sanca inaad tagtay, sidaas Sanca u dhisan tahay bay magaalada Maka u dhisnaan jirtay. carabtu waa isku wada dhismay ahayd. buuraa ku weer hareersan magaalada Maka oo maaragtay labadaa buurood dhexdooda waad iga arkaya.
meelaha shishe ee guryaha xaggaa ka muuqda rag safara oo geel iska wata ayaa maaragtay xaggaa iska maraya. rag kaloo magaalada soo galay baa xaggan ka sokee maaragtay bidixda socda. dee waxay ahayd magaalo baayac mushtara oo maaragtay dharka xariirta ilaa China laga keeno, ilaa Masar laga keeno, ilaa maaragtay waxaa maaragtay Africa iyo Yurub laga keeno oo dhan ay isugu imanaysay bay ahayd. magaalo xadaarad badan bay ahayd. dee magaalo barakaysanna way tahay oo maanta maaragtay waa meeshii qur-aankeena kariimku kusoo degay ee ugu horeysay. waa meeshii maaragtay nebigeena suuban lagu doortay maaragtay rasuulnimada iyo nebiga nebi ahaan lagu doortay. waa meeshuu nebigeena ku dhashay. markaasi waa magaalo barakaysan. waa magaaladii maaragtay nebi ibraahim uu dhisay maaragtay kabcada. markaasi aada iyo aada waa magaalo qiimo badan. sidaa baan walaalayaal inuga tegayaa. nabadgelyo iyo amaano Allah.